qodob kale oo dadku ay aada isu weydiinayaan oo ku saabsan caafimaadka maskaxiyan ee madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. saad ka warqataan Ismaaciil Cumar Geelle maalinba maalinta ka dambaysa caafimaadkiisa dhinaca maskaxda aad baa looga dayrinayaa iyadoo ay ka muuqato madaxweynaha in ay haysato wax la yiraahdo xusuusta in uu luminayo amaba uu dementia uu qabo. madaxweyne Cumar Geelle kama taliyo Jabuuti ee waxa ka taliya dad kale ama familigiisa aadaan ama gacan yarayaal kala ahaadaan. karog oo laba saar daawadayaal barnaamijkeena waa barnaamij aad u xiiso badan waxaan imika ambal guda galaynaa qodob kale oo dadku ay aad isu weydiinayaan oo ku saabsan caafimaadka maskaxiyan ee madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. saad ka warqataan Ismaaciil Cumar Geelle maalinba maalinta ka dambaysa caafimaadkiisa dhinaca maskaxda aad baa looga dayrinayaa iyadoo ay ka muuqato madaxweynaha in ay haysato wax la yiraahdo xusuusta in uu luminayo amaba uu dementia uu qabo. darajada uu dementia-kaasi joogo ma garan karno laakiin waxa uu ku dambeeyaa habka asaasaqa waxa loo yaqaano. marka Cumar Geelle bal aan yar dhageysano khudbadii uu halka uu ka jeediyay waxyaabaha shakiga dhaliyay iyo qaabka uu hadlay intaba kadibna waa falanqeynayna. waxa cajab leh waxa aan arknay maanta waxaasina wuxuu ka imanayaa waa odaygeenana ah gudoomiyaha waa ra'iisul wasaaraha ayuu hadal maskaxdiisu ay soo qaban weyday in uu joogo wadankaasi Ethiopia magaalada Jigjiga ra'iisul wasaare Abiy Ahmed dhinaciisa fadhiyo iyo madax kaleba sida madaxweynaha Soomaaliya uu soo hadalkii maskaxda way dementia-ka waxa la yiraahdo calaamadihiisa ka mid tahay oo ah in marka qofku aan waxyaabaha xusuusta dhow oo dhan ay maskaxdiisa ay ka meedmayso. marka madaxweynuhu ku cilcilinayaa isaga oo soo qaban kari la wuxuu yiri gudoomiye meeshana ra'iisul wasaare umadeed baa fadhiya waana hadal ka baxsan haba yaraatee diblomaasiyadda uu hadalkii maskaxdiibu ka baarayaa calaamadaha dementia-ka iyo waxay ka mid tahay sida ay dadku ay sheegaan calaamadaha nooca qofku marka lagu leeyahay asaasaqay wax kale ma aha waxba ma kala garanayo meeshuu joogo xataa waxa laga yaabaa hadii la weydiiyo maanta taariikhdu waa imisa bishu waa imisa magaaladana joogta waa halkee inuuba garanba waayaba. laakiin calaamadani waxay muujinaysaa in madaxweyne Cumar Geelle maskaxiyan aanu fid ahayn. bal haddaba haddii aynu wax yar ku soo celino saadawanaysaan cajab leh waxa aan arknay maanta waxaasina wuxuu ka imanayaa waa odaygeenana ah gudoomiyaha waxaan ku dhahdaa qosol buu ku yar qariyay markuu arkay inuu ku jiro odaygeena meesha oday muu joogin ra'iisul wasaare joogay dalka Ethiopia matala. markii dambena waxa uu yiri markii uu odaygeena ayuu hadana dib u fakiray iyadoo laga yaabo maskaxda xusuustu inay soo qaban weyday Abiy Ahmed oo ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia ah in uu ra'iisul wasaare yahay madaxweyne yahay uu garan kari waayay macnaheedu waxa ay tahay waxyaabihii marka nolosha caadiga ahayd inay ku adkaanayso prime ministerka waxa cajab leh waxa aan arknay maanta waxaasina wuxuu ka imanayaa waa odaygeenana ah gudoomiyaha waxaan ku dhahdaa prime ministerka waxa cajab leh horta runtii reer Jabuuti maanta waxa u taala tacsi aad iyo aad u ballaaran hogaamiyahoodii maskaxiyan runtii waxaabuu la dagaalamaaba Somaliland iyo siyaasado waaweynba u galaa waa noloshii caadiga ahayd waxa uu ku hafanayaa waa hawl maalmeedkii madaxweyne loogu talagalay sidaas ayaanu doonayaa in uu ku maamulo wadanka Jabuuti muddooyinka soo socda qofka ilaahay miirka iyo caafimaadkaba uu ka qaadaa oo maaha mataqana ujeedadu in ay farxad gaar ah amaba ay muujinayso
dee waa qof bini aadan oo muslina maskaxda iyo miyirkana ilaahay haddii uu kaa qaado yani wax maaha farxad iyo de aan media ahaan aanu ka dhiganayno madadaalo, laakiin waxa runtii ay tahay nasiib darro aada u weyn oo ku dhacday qaranka Jabuuti, oo aan anigu maanta ku tilmaami karo madaxweyne Cumar Geelle kama taliya Jabuuti ee waxa ka taliya dad kale ama familigiisa ahaadaan ama gacan yarayaal kale ahaadaan. taasina markaa waxa ay keenaysaa wadanku inuu khalkhal siyaasadeed u galo, hogaamiye la-aan ay ku dhacdo, maskaxiyana kulleyba hadiiba imika uu sidan uu yahay waxaa laga yaabaa dimensionka cudurka la yidhaahdo oo soomaaliduna u taqaana asaasaqa wax kale ma aha, waa qofka oo maskaxdiisu isku dhex daadato, kala garan la maalinta, waqtiga, jawiga, go-aamo khaldan gaari kara. taas ayaa markaa maanta Jabuuti runtii waxa ay maanta ka qaaday shirkaasi inay tusto adduweynaha iyo caalamkaba iyo dadka Soomaalida aba iyo guud ahaanba Somaliland iyo dadka Jabuutiyaanka aba in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle miirkii iyo maskaxdii iyo bartii laga hagayo qofka bini aadanka ah in khalkhal uu ka galay, waana nasiib darro aada u weyn oo ku dhacday reer Jabuuti maadaama maskaxdii iyo caqligii uu ilaahay uu kala noqday ninka la yiraahdo Ismaaciil Cumar Geelle. daawadayaal inta aragti noocan oo kale hawada aynu isugu soo noqon doono sida ay nabadgeliyo waa barnaamijkeena uu inoo socon doona insha Allah taala maalmaha soo socda, falanqayntu way socon doontaa. inta aragti noocan oo kale hawada aan ku kulmayno sida ay nabadgeliyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.